الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحيقي وقهريي lagu soo dejiyay rasuulka Allah sallallahu alayhi wa sallam waxay ahaayeen aayadihii quraanka u horeeyay ee soo dega oo ku xigay aayadaha suuratul al-alaq aayadahan markii kor laga eego wax fudud oo sahlan la moodayo laakiin xeel dheer oo dhumuc fog saameyn iyo waxtar adagna leh malagu wuxuu soo gaarsiiyay dhambaal cad oo leh bismillahir rahmanir rahim يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ورادق محمد صلى الله عليه وسلم اسكدد يدركو كعودك وربك الله وينه oo dharkaaga daahiri oo ka fogow rujisiga iyo sanamada oo ha u bixina waxna si aad u hesho ka badan ama ha u arkin amaladaada alle adeeca ah galad iyo wanaag aad alle u galaysid ahaan oo u sabir rabbiga dartiis yacni u gudo waajibkaaga Allah uguna sugnow si sabir leh isaga dartii soo dhaweyn iyo si aan si fudud u fahanno darteed waxaan u kala dhigdhigaynaa fariintan qodob ka oodig waxaa loola jeedaa cid kastoo uunka ku nool oo ku socota waxaan alle raali ka ahayn oo khilaafsan amarkiisa uga dig cawaaqib xumada camalkiisu leeyahay si ay uga walwalaan waxa ay ku jiraan oo uga weecdaan waxa lagu waaninayana u yeelaan weynaynta rabbiga waxaa looga dan leeyahay cid aan alle ahayn inaan koonkan looga haybaysan cid kasta oo dhulka isku weynaysana aan laga yeelin si uu alle kaliyihi weynaanta u yeesho daahirinta dharka iyo ka dhexbaxa waxyaalaha xilka leh waxaa loola jeedaa in nafta gudaheeda iyo oogadeeda daahir laga dhigo oo ruuxda laga sifeeyo dhammaan dhaqamada xunxun si ay diyaar ugu noqoto ku hoos noolaanta hoosiiska raxmadda alle ee haraca ah iyo ilaalinta iyo xifdinta rabbi iyo nuurkiisa iyo hanuunkiisa si ay ruuxda xilka xambaaraysa bulshada adduunka tusaale ugu noqoto oo u soo jiidato qalbiyada fayow kuwa bukaana ay u weyneeyaan oo uga haybaystaan si ay adduunka oo dhami marka dambe xaggiisa ugu soo weecato iyadoo raalli ku ah ama sandulaysan inaan wax badso wax loo bixina waxaa loola jeedaa inaan wixii la bixinayo ama cid loo tarayo danaysi loo tarin iyo xeer iyo abaaldhigasho waji looga doonayo ee waa in alle dartii wax loo bixiyo oo adoomada alle wax loo taraa iyadoo aan dan laga lahayn magacna lagu doonayn ee daarta aakhiro iyo alle abaal looga doonayo dhinaca kalena aayaddu waxay leedahay macno kale oo kaas ka agdhow oo ah abaal sheegan oo waxaad qabatay yeysan kula badan waxaa la doonayaa adoonka alle dartii u shaqaynaya inaanu wax isbidin oo wuxuu bixiya ama qabtaa aysan la badan wixii uu bixinayana uusan waxbadsi iyo abaagud ku doonayne uu dadaal wadaa alle dartiisna ahaada aan dan kale lahayn aayadda u dambaysaana waxay farta ku fiiqaysaa waxa rasuulku sallallahu alayhi wa sallam la kulmi doono oo dhibta garmaqaatayaasha madaxa adag ah oo diidmada xaqa iyo jees iyo yasid iyo ku dadaalida dilida isaga iyo asxaabtiisa iyo cadaadinta iyo ciqaabida wixii rumeeya oo rabbi dartii ku raaca waxaana ala faraya rasuulkiisa waxaas oo rafaad ah oo rabbigii dartii ku gaari doona inuu u samro oo u dulqaato oo adkaysi u yeesho si uu rabbigii u raali geliyo maxaa yeelay samirku waa sahayda looga gudbo caqabo kasto adag loogana jiba gaaro hawl kasto adag si loo gaaro raalinimada alle kuwa kani waxay ahaayeen amaradii laga doonayay nabiga sallallahu alayhi wa sallam inuu fuliyo
markii guudka sare laga eego sahal la moodayo fudud ha yeeshee dulucdoodu fog tahay waxay matelayeen riishad ama qarax kiciye dabayl dheeraysa oo gees walba ka soo gashay dunida. aayadaha waxay ka kooban yihiin maadooyinka aasaaska u ah dacwada iyo faafinta iyo gaarsiinta diinta islaamka. digniintu waxay tusinaysaa inay jiraan camallo ciribtooda la eedayo oo ciddii gasha laga jaasayn doona oo laga jeebi doono oo hadda laga digayo. qof walbana wuxuu garanayaa inaan dunida la isaga jaasayn waxa dadku falayo oo dhan. marka digniintu waxay tusinaysaa inay jirto maalin aan maalmaha adduunka ahayn oo wax la jaasayn doono, waana maalinta loo yaqaan maalinta qiyaamaha iyo maalinta jaasaynta ama maalinta abaalmarinta. taasina waxay lama huraan ka dhigaysaa inay jiri doonto nolol aan ahayn midda adduunka hadda aan ku noolnahay. dhammaan aayadaha qur'aanka kariimka ah waxay addoommada u dirayaan waxididda iyo keliyeynta Alleh iyo in isaga arrimaha oo idil loo deysto oo la isku haleeyo. raaligelinta naftana laga tago iyo hawooyinkooda iyo hawooyinka aadanaha iyo rabitaanadooda oo laga doorto raaligelinta rabbiga uumanka jalla wacala. maadooyinkana waxaa lagu soo koobi karaa sida tan: qiradda tawxiidka iyo waxdaaniyadda Alleh, rumaynta maalinta aakhiro, hufidda nafta oo ah in laga reebo munkarada, foolxumooyinka iyo dembiyada u soo jiidi kara ciribxumida, iyo in lagu beero kasbashada camalada wanaagsan iyo falalka khayr ee kaamilka ah. in talada oo dhan Alle loo daayo. waxaas oo dhan waa in ay la socdaan rumaynta risaalada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo loo hoggaansamo tusaalooyinkiisa iyo hanuunkiisa toosan. aayadahaas bilowgoodu wuxuu xambaarsan yahay dhawaaq sare ka yimi oo codkii weynaha sarreeye ah oo nebiga ku boorinayay arrinkan weyn, kana kicinayay hurdada iyo duuduubnaanta iyo dugsiga, una dirayay jihaad iyo halgan iyo hawl adag. iyadoo soo jeedinaysa inuu qofi u noolaado naftiisa keliya ay fududahay, laakiinse waxaa la gooyey inaad qaado xilkan weyn oo culus marka hurdo, raaxo ama gogol dugsoon waa waxyaalo la gooyey inay ka ahaadaan shisheeye hanaanka noloshaada. Muxammadow, u kac oo dig arrinkan weyn oo ku sugaya iyo xilkan culus ee ku diyaarsan. u kac, dadaal iyo daal. kac, waqtigii hurdada iyo nasashadu waa tageene. wixii maanta laga bilaabana waa kuu soo jeed badan iyo halgan daba dheer oo adag ee u tabaabushayso arrinkan oo u diyaar garow. waa kelmad weyn oo laga boqo oo nebiga ka saartay gogashii dugsoonayd ee gurigiisa u deganaa, oo dibadda uga saartay oo ku riday bad mool ah oo halgan looga howlgalayo kala jiidashada laabaha dadka iyo wax ka beddelka hanaanka nolosha si loo weeciyo majaraha taariikhda oo loo bedelo marinka lagu socdo. rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam fadhigii waa ka kacay, wuxuuna hawl u taagnaa muddo 23 sano ah. wuxuu u kacay oo u taagnaa faafinta diinta Alleh, isagoo dusha u ritay culaabta culays badan oo qaali ah. aana u dabcin waxaa saarnaa culayska xilka weyn ee dhulka, culayska aadanaha oo dhan, culayska caqiidada oo dhan, iyo culayska halganka iyo jihaadka. goobo kala duwan wuxuu ku dhex noolaa dagaal joogto ahaa oo socday muddo ka badan 20 sano, isagoo aan arrin ka mashquulinayn muddadaas oo dhan. sidaas buu u taagnaa laga soo bilaabo markii uu maqlay dhawaaqa sarreeyaha weyn oo uu ka gudoomay xilkii culaabta badnaa. allaha nooga abaalgudo innaga iyo aadanaha oo dhan abaalgud khayr. walaalayaal, darsigeeni maanta inta ayuu ku dhan yahay. inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono, waa anigoo ah Maxamuud Jaamac. waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.